السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka soo dhawaada. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay 12 caado oo ay leeyihiin dadka iskood u sameystay maalka ama lacagta ama u noqday iskood milyaneerada. Dadkaas ayaan uga hadli doonaa muuqaalkeena maanta 12 caado oo dadkaas u goodniya ayaan soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala. Fadlan intaan muuqaalka guda galin haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran, subscribe noo saar channelka si aad uga mid noqotid saaxiibada aan bartan ku walaalownay, si aad u heshid muuqaaladeena mar walba. Gambalaalka furo, like, share hana ilaawin, qaybta hoose comment ugu reeb wixii fikir aad haydid. Waxay rumeeyaan ama mar walba ku dadaalaan inay rumeeyaan riyooyinkooda. Waxay inta badan fariisiyaan riyooyinkooda, waxay si toos ah u hubiyaan meesha ay rajeynayaan inay gaaraan hadafkooda, ayay si toos ah u hubiyaan waxay doonayaan inay noqdaan, ayay horto meel ku ogaadaan. Qofka ay rabaan inay noqdaan, waxa ay taamayaan inay noqdaan ayay iska hubiyaan. Meesha ay doonayaan ay ku riyoonayaan ama ay ku taamayaan inay noqdaan ayay horto marka koowaad meel iskaga ogaadaan. Waxay la socdaan dadka kale ee guuleystay. Mar walba waxay la socdaan dadka guuleystay oo asaagood ah. Micnaha dadka guuleystay ay mar walba ka agdhow yihiin. Dadka guuleystay oo guusha u saaxiibka ay ka agdhow yihiin oo mar walba horumarka sii gaaraya, sii soconaya, hor u kac sameynaya, mar walba ay ka agdhow yihiin. Waxay leeyihiin ila dhaqaale oo badan. Milyaneerada iskood wax u sameysta waxay u janjeeraan inay ku tiirsanaadaan meelo badan oo dakhli ah. Qiyaastii 65% waxay xaqiijiyaan ugu yaraan 3 ilo dakhli ka hor inta aysan bangiga gelin milyaneerkooda ugu horeeya. Micnaha intaysan bangigaba lacag ka doonan, 65% ay lacag diyaarsadaan si ay u noqdaan dad la gacan qabo karo markaas wax loo dhiibi karo. Habeenkii waxay seexdaan waqti hore 7 saacadood ayay hurdaan habeenkii. Si toos ah ay 7 saacadood u seexdaan. Ku dhawaad dhammaan milyaneerada iskood u sameysta waxay soo sheegeen inay seexdaan 7 saacadood ama wax ka badan habeen kasto. Inta badan dadka guulaha gaara waxaad arkaysaa ayagoo waqtigooda ugu badan habeenkii si fiican u hurda. Waqtiga ugu horeeya soo kacaana muslim hadduu yahay wuxuu soo kacaa waqtiga salaada subax soo kacaa, kadibna shaqadiisa ayuu aad u aado. Haddii uusan muslimeena waqtiga adigu shaqadiisa soo kacaa kadibna iska baxaa. 5 way jimicsadaan. Inta badan waxay ku dadaalaan inay jimicsadaan. Jimicsiga ay xoog saaraan. Inta badan waxay sameeyaan jimicsi jirkooda ay inta badan aalamiinta siiyaan, maskaxdooda inta badan way ka shaqeysiyaan, jirkooda ka shaqeysiyaan si ay u helaan nashaadaad ama firfircooni. 6 waxbay akhriyaan. Ku dhawaad 88% milyaneerada iskood u sameystay lacagta waxay ku qaataan 30 daqiiqo ama wax ka badan maalintii waxbay akhriyaan. Waxay akhriyaan noocyada buugaagta sida taariikh nololeedka iyo noocyada caawinta, noocyada taariikhyada dadkii hore, dadka guuleystay, sida dadka loo caawiyo iyo waxyaabahaas ayay akhriyaan. Qof guuleystay taariikhdiisa in la akhriyo kale, caawinta dadka kale, waxyaabahaas ayay akhriyaan. Iyagu waxay jecel yihiin guusha iyo waxyaabahaas oo kale, ama qof guul dareystay haddana guuleystay in akhriyaan ay jecel yihiin. 7 waxay leeyihiin dabeecado togan. Aragti maskaxeed oo togan ayaa lama huraan u ah horumarinta caadooyinka guuleysta ee caawinaya in la gaadho heerka milyaneer. 8 way joogteeyaan. Inta badan shaqadooda kama gaabiyaan, way joogteeyaan. Waxay ku dadaalaan sidii shaqadaas uga miro dhalin lahaayeen. Way ku celceliyaan, way joogteeyaan. Wax badan bay ku celcelishaan. Mar walbana waxay ku dadaalaan inay bedelaan shaqadii shalay, wax cusub keenaan, bedelaan alaab cusub keenaan, wax cusub keenaan. Mar walbana alaab cusub bay la yimaadaan, dalab cusub bay la yimaadaan si dalabkoodu u noqdo mid la xiiseeyo. Mar walba dalab cusub bay la yimaadaan. Fikradaha asalkaana kama cabsanayaan. Micnaha wax hore ayagoo haystay in wixii hore ay la soo suuq tagaan oo waxaas ay gadaan ama iibiyaan si ay lacag u helaan ama oo lagu dhaleeceeyaan kama cabsanayaan. Waayo waxay doonayaan waxa kan ay hayaan inay gadaan si wuxooda ay ugu bedelaan wax kale. Wax walbana kama cabsanayaan. 10 kama baqaan dhaleeceynta. inta badan kama baqaan waxyaabaha falcelinta ka yimaada dhanka bulshada kama baqaan mid togan ama wanaagsan ama mid xun
waxyaabahaas dhan kama cabsanayaan, ma fiirshaan waxa soo socda ama waxa dhacaya ama waxyaabahan imaanaya inay xun yihiin inay wanaagsan yihiin. Ayaga waxaa muhiim u ah in waxa kan ay keeneen in ayagu horta ku qancaan. Ayagu markay ku qancaan horta waxa tayo ma leeyihiin. Haddii wuxuu tayo yihiin wanaagsan yihiin way gadayaan. Waayo bulshada lagama waayo waxun. Dadka intooda badan ma qancin kartid. Saas laajigeed waxaad wadid waxaad ku qasbanta inaad dadka ku qancaya aad ka gadid. Waa sida inta badan ay ku guuleystaan dadka boqolkiiba 80 guusha gaara. Lambar 11 waxay caawiyaan kuwa kale inay guuleystaan. Waxay ka caawiyaan dadka kale inay guuleystaan. Kuwa kale oo aan guuleysan oo u baahan inay guuleystaan oo ku dadaalaysi ku guuleysanay way garab istaagaan. Maalqabeennada kale ama dadka kale oo ganacsatada kale oo doonayaan inay guuleystaan oo yaryar way gacan qabtaan, kor u kacay u sameeyaan, way gacan qabtaan oo inta badan way booriyaan, waxyaabo badan u sameeyaan, kor bay u soo qaadaan si ay u guuleystaan ayaguna. Way u fududeeyaan waxyaabo badan u fududeeyaan wayna guuleystaan. Aakhir kuwaasuna waxay noqdaan kuwa guuleysta aakhirka. Lambar 12 iyaga oo iska wax u qabso ah. Inta badan waxay sameeyaan iska wax u qabso. Mar walba oo bulshada ka dhex muuqatidna waxa ku fududaanaya helitaan laba shay, sumcad iyo magac labaduba way ku fududaan doontaa inaad heshid. Mid kalena way ku fududaan doontaa midaas oo ah inaad in badan wax walba oo keentid farta lagu fiiqo la yiraahdo ninkaas wuxuu keenay way wanaagsan yihiin xaggaaga loo soo bato waxaad keentid hore laga qaato. Marka waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu wax badan ka faa'iiday. Fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir, haddaad hore noola joogtana muuqaalka la wadaag saaxiibadaada. Hada billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ah